waxaa la sheegaa siyaasaddu male saaxiibtinimo joogto ah laakiin waxay leedahay dan joogto ah. waxa uu Israa'iil ugu baaqay inay isdhiibto nacaybku u qabo darteed. intii uu xilka hayay waxa uu sameeyay taariikh caan baxday tacadiyo baaxad leh. waxa uu ahaa madaxweynihii saddexaad ee soo mara dalka Uganda, sarkaal ciidan oo ka soo jeeday qoys muslimiin ah, sidoo kale madaxweynihii ugu caansanaa dalka Uganda. waxa uu laayay dad gaaraya nus milyan qof. kani waa Idi Amin Dada. magacaygu waa Cabdullaahi Xareed, halkanina waa kanaalka Ilayska Dunida. haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelka Ilayska Dunida, fadlan subscribe dheh, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Idi Amin waxa uu ku dhashay meel u dhow magaalada Kobako ee galbeedka gobolka Nile ee dalka Uganda sanadii 1925. waxa uu dhalashay ahaan ka soo jeeda gobolada galbeedka Nile ee dalka Uganda. Idi Amin aabihii oo markiisii hore lagu magacaabi jiray Andres Niber, aakhirkiina ku soo biiray diinta Islaamka sanadii 1910. xilligaa kadibna la baxay magaca Amin Dada. Idi Amin Dada waxaa korisay hooyadii Asia Ate, waxaana ku barbaaray deegaanka ay hooyadii ka soo jeeday gobolka waqooyi galbeed ee dalka Uganda. Idi Amin waxa uu ka bilaabay waxbarashada diinta Islaamka dugsi Islaami ah oo lagu magacaabi jiray Pambo sanadii 1941, halkaas oo ka waday waxbarashadiisii cilmiga Islaamiga ah. kadibna waxa uu kaga tegay fasalka afraad, waxaana ku biiray askarta boqortooyada King's African Rifle ee xilligii gumaystaha Ingiriiska sanadii 1946, isagoo noqday kalkaaliye cunto. Idi Amin Dada intii uu ku jiray ciidamada Ingiriiska waxa uu ka qayb qaatay dagaalada Ingiriisku la galay Burma iyo dagaaladii labaad ee adduunka, inkastoo sida uu sheegay lagu qasbay ka qaybgalka dagaaladaasi. 1947 waxaa loo bedelay dalka Kenya magaalada Gildi, halkaas uu ku biiray ciidamada King's African Rifle. sanadkaas waxaa ciidamo uu ka tirsan la soo dhaway waqooyiga dalka Kenya, kuwaas oo ka qayb qaatay dagaalkii lagu magacaabi jiray Shift War oo kana ah jabhadda Soomaaliya oo ka dagaalameysay waqooyiga dalkaas. Idi Amin Dada waxa kale oo ka qayb qaatay dagaalo ka dhan ah jabhadda Mau Mau sanadii 1952 ee ka dhacay dalka Kenya, waxaana xilligaas isaga iyo qayb uu ka tirsan loo dalacsiyay darajada ka hooseysa Sergeant, iyadoo sanadii 1953 si rasmi ah loogu dalacsiyay darajada Sergeant. sanadii 1959 waxaa la sameeyay darajada ugu sareysa ee la siiyay dadka madowga ah xilliga ka tirsan ciidamada gumaystaha Ingiriiska ee loo yaqaanay Aband ama Warrant Officer. Idi Amin Dada waxa uu ku noqday dalka Uganda 1961, waxaana loo dalacsiyay darajada ciidamada ee ka hooseysa Captain, waxaana ka mid ahaa 2 askari oo ka soo jeeday dalka Uganda oo si rasmi ah loo siiyay darajadaasi. waxaa isla xilligaasi loo xilsaaray inuu xaliyo dagaaladii ku saleysnaa dhaca lo'da ee u dhaxeeyay qabiilooyinka Karamojong iyo Turkana oo ka soo kala jeeday dalalka Uganda iyo Kenya. sanadii 1962 xilliyadii dalka Uganda ay xorriyadda ka qaadanaysay boqortooyada Ingiriiska, waxaa Idi Amin Dada loo magacaabay darajada Captain. isla sanadii 1963 waxaa sidoo kale loo dalacsiyay darajada Major. isla xilligaasi waxaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidamada. Idi Amin Dada waxa uu ahaa nin jid ahaan dhisan oo awood ahaan xooggan, isla markaana ahaa nin dheer oo ku dhex muuqday xilliyadii uu ka tirsanaa ciidamada gumaystaha Ingiriiska iyo dalka Uganda, isagoo dhererkiisu lagu qiyaasay 193 sentimitir. waxaana lagu xasuustaa inuu ahaa nin dhinac ciyaaraha jecel, isaga oo ka tirsanaa kooxaha ciyaara feerka fudud ee dalka Uganda sanadii 1951 ilaa 1960, isagoo sidoo kale ahaa nin ku fiican dhinaca dabaasha. ciidamadii gumaystaha Ingiriiska ee Idi Amin Dada ee ka watirsanaa ciidanka ayaa sheegay in Idi Amin Dada uu sidoo kale uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu fiicnaa aan la iloobi karin ee xilliga ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabi jiray Hayes Football Club. 1965 ra'iisul wasaarihii dalka Uganda Milton Obote iyo Idi Amin Dada waxay ku heshiiyeen inay ka ganacsadaan foolka maroodiga, bunka iyo dahabka laga soo dhoofin jiray dalka Syria iyadoo la keenay jiray dalka Uganda. waxaana xilligaasi lagu eedeeyay General Nigelas Olenga oo ka tirsan saraakiisha hogaamiyihii hore dalka Congo Patrice Lumumba in heshiiskaas uu qayb ka ahaa in la sameeyo ciidamo ka soo horjeeda ganacsiga foolka maroodiga iyo dahabka, iyadoo Idi Amin Dada si qarsoodi ah ugu ganacsan jireen
1966 baarlamaanka dalka Uganda ayaa ka dalbaday dowladda xilligaasi ee madaxweynaha ka ahaa Edward Mutebi Mutesa isla markaana ahaa boqorka Buganda in la sameeyo baaritaano la xiriira ganacsiga qarsoodiga ee foolka maroodiga bunka iyo dahabka oo xilligaasi laga soo dhoofin jiray dalka Congo. Ra'iisul wasaarihii xilliga ee dalka Uganda Obote ayaa laalay dastuurkii dalka Uganda ee aan awoodda buuxisiinayn hoggaanka dalka wuxuuna soo rogay in la sameeyo madaxweyne awood buuxda leh isagoo si rasmi ah isugu magacaabay madaxweynaha dalka wuxuuna meesha ka saaray awooddii xoogganeed ee ay lahayd boqortooyadii xilligaasi ka talan jirtay dalka Uganda Kabaka ama Sekaingi Mutesa of Buganda waxaana xilligaasi u magacaabay Idi Amin Dada Corneille isla markaana si rasmi ah u noqday taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalka Uganda. Idi Amin waxa uu hogaaminayay ciidamadii xoogga kaga saaray boqortooyadii Kabaka Kain Mutesa of Buganda isaga oo boqorkii xilligaasi uu magangalyo uga baxsay dalka boqortooyada Ingiriiska. Xilligaasi waxa uu Idi Amin Dada bilaabay qalabaynta ciidamada ka kala socday qabiilooyinka Kakwa, Lagbara, Nubian iyo qabiilooyin kale oo ka soo jeeday galbeedka webiga Nile ee dalka Uganda. Uganda oo xuduudda waddanka Suudaan, Nubians oo deganaa dalka Uganda ilaa bilowgii qarnigii 20aad kuwaas oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Suudaan oo ka tirsanaa ciidamadii gumaystaha Ingiriiska iyadoo lagu eedayn jiray qabiilooyinka kale oo Afrika ku nool waqooyiga dalka Uganda iyo Suudaan inay taageero ka siin jireen hogaamiyihii hore dalka Uganda Idi Amin Dada waxaana ugu badnaayeen ciidamada taageerada siin jiray Amin qaar ka mid ah dalalka Suudaan. Ciidankii u dhaxeeyay madaxweynihii hore dalka Bilton Obote iyo Idi Amin waxa uu noqday mid aan wanaagsaneyn iyadoo xilligii Idi Amin uu dib u dhis ku sameeyay ciidamada isla markaana kuwa cusub ka soo qarameeyay galbeedka Nile ee dalka Uganda kuwaas oo markii dambe taageero military u fidiyay jabhadii ka dagaalamaysay koonfurta Suudaan